Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay waxaa saameeyay isbeddelka cimilada waxaana ka dhashay dhibaatooyin ay ka mid yihiin roobabka oo aad u yaraaday boholo waaweyn oo ka samaysmay dhuldaaqsimeedkii kuwaas oo sababay inuu xaalufo dhuldaaqsimeedkii abaaro soo noqnoqday iyo biyo la'aan baahsan barkadu markay afnaan tahay waxay noqonaysaa wada la marayo kale caruurta ku daadanaysa ariga ku daadanay markuu soo ariga magaalada oo sii socdo ku daadanaya ilmihiiba hooyadii iyo maamadii ka dhuumanayo intay dhahaan meesha ku soo dabaalanayna ka yar inta ku dhaco salka tagaya dhuldaaqsimeed aad u wanaagsan oo meelaha xooluhu ay ku soo baxsadaan ahaan jiray waxa abaarihii dabada badnaa isdaba joogay dhirtii waa xaluftay dabadeedna daadad baa yimid boolahana ka dilaacay la xirin boolaha ka wax sameyn jirtay markii xoolaha yar oo roob daaw waa go'ay jirtay markii maxaan ku dabaysh saayida waa go'ay jirtay xoolaha ku daadan jiray dhirta waaweyn inta la aragtay gudaha ugu dhici jirtay maalin kasta go'ay jirtay boolahan markaan aragnay runtii waxaan islahayn kala hore waxba laga qaban karo aad baanu dismaraal ugu noqon wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta Puntland oo kaashanaysa hay'adda UNDP ayaa bilowday mashruuca la tacaalidda iyo la qabsiga cimilada ujeedka mashruucan ayaa ahaa in wax laga qabto dhibaatooyinka uu keenay isbeddelka cimiladu mashruuca isbeddelka cimilada climate change waxa la daahfuray 2014 waxaa maalgelinaya Chef oo la yiraahdo Global Environmental Facility waxaa iyaduna fududeynaysa oo wasaaradda kala shaqeynaysa hay'adda UNDP wareegii kawaad wuxuu xooga saarayay oo wasaaradda iyo Puntlandba xooga ka saarayay waxa weeye siyaasadaha waxaan u sameynay policies bay samaysteen istiraatiijiyaad la sameeyay waxa la yiraahdo district adaptation plans baan la sameynay oo ah qorshayaal degmooyinka oo xooga saarayo in ay samaystaan qaab ay ula macaamilaan oo la noolaadaan waxyaalaha ka dhacaya oo uu sababay isbeddelka cimiladu wasaaradda deegaanka ayaa ku guulaysatay dhammaan waxyaabihii uu ka koobnaa wejiga koowaad ee mashruucan sida hirgelinta biyo xidheenno ama biyaha kino loo sameeyey dadka reer guuraaga iyo kuwa deggan tuulooyinka iyo degmooyinka qaarkood oo loo dayactiray barkadaha waaweyn ee biyaha xareedda lagu kaydiyo barnaamijkan waa markii ugu horreysay taariikhda Puntland ay ka faa'iideysato qaab ka gedisan qaababkii hore oo runtii mashaariicda looga faa'iideysan jiray waa markii ugu horreysay oo ay noo suurtowdo inaanu dhisno biyo xireenno dadku ay u aayeen si weyn gaar ahaan xilliga abaarta ee aadka u darnaayeen soo maray qodobka labaad oo uga faa'iideysanay mashruucan waxa weeyaan in dib loo soo nooleeyo dhulkii daaqa mashruuca kan waxaanu noo suurtowday inaanu dayactir ku sameeyno dhulkii ay dhibaatadu gaartay ee dildilaacay ilaa iyo 7 meelood oo ka mid ah Puntland tababaro ku saabsan isbeddelka cimilada oo runtii Puntland laga sameeyay khaasatan meelaha mashruucu uu xooga saarayo sida 3 degmo oo ah 3 degmo oo lagu tijaabinayo mashruuca oo ah Dangaloyo meesha la yiraahdo Qardho iyo Bayla mashruuca anagoo ka faa'iideysanayna waxaanu sameynay wacyigelin bulsho oo ilaa iyo 3,000 oo qof ay ka faa'iideysteen wacyigelintaas waxa aan gudbinay dhambaalo kala gedisan oo aan dadweynaha u gudbinaynay ha noqoto kuwa qoraala ama ha noqoto kuwa aanu ka sii daynay warbaahinta dalka sida TV-yada iyo idaacadaha waxa cajiib ah in dadku ay cashar ka qaadanayeen oo ay la yaabanaayeen qaabkan cusub farsamadan cusub maxaa yeelay dadka reer miyiga ah waxay yaqaaneen ceel biyaha in laga shubto waxa kale oo yaqaaneen barkad laas baa soo raaca laakiin markay arkeen dhaamkan
kharashka yar ku baxaya haddana faa'iidadiisu iyo nafaacigiisu ballaaran yahay waxaa galay cashar ah inay samaysan karaan maadaama Puntland ay leedahay togog aad u ballaaran mashruuca kan ilaa 500 oo qof ayaa waxa la siiyay waxbarasho dadban oo laga caawinayay iyo mid toosaba laga caawinayay arrimo ku saabsan caafimaadka fayadhowrka iyo deegaanka si loo ilaalin lahaa waxaan la yiraahdo boholo xireen oo runtii boholo aad u waaweyn oo dooxooyina oo yacni waxa weeye runtii biyaha xilli roobaadka ay aad u jabsan jireen meelo xooluhu daaqaan oo runtii muhiim ah halbowlana ahayd baan waxaan ku samaynay dayactir taasoo yacni aan barnay dadkii waxa yacni ay u faafayaan iyo sida looga hortagi karo ay cashar ka qaateen markaana yacni dadkii lagu abaabulay inay qayb ka qaataan dadweynaha ku dhaqan deegaanada laga fuliyey mashruucan ayaa sheegay in mashruucani natiijo fiican ka soo baxday waxyaabo badanna uu ka qabtay dhibaatooyinkii ka jiray deegaanadooda ee uu sababay isbeddelka cimiladu waxayna qireen inay ka faa'iidaysteen intifaacii aan ku helayna waa sheegayna barkadda naloo qoday oo naloo habeeyey hay-addii waana anfacday barkaddaasi biyihii waa galeen waa buuxsantay haddii ilaahay kuu rumayo waa ku barwaaqownay dad iyo dunyaba waa cabnaa hay-adda taas ilaah baan mahadinaynaa hay-adda taasna waa uga mahad celinaynaa hadda mashruuca yaroo laga fuliyey waxaad arkaysaan isbeddel weyn inuu ka sameeyey biyihii way hakadeen dib bay u weecdeen balligii bay ku noqdeen cawska waa asaga soo baxaad arkaysaan gargar wey hadda cawska idiin muuqanayo oo ka muuqda nabaadkii ilaahay ugu talagalay oo ka bixi jiray sabaankii hore baa bilow ah hadda deegaan birta dheer la yiraahdo oo gobolka Garowe hoos yimaada reer ka soo raray halkan haddaanu nimina meesha tan aan biyo noo noqotay ciyaarkan soo darsanay ariga waxa uu ku soo aroortay goorta xogaa soo daaqay biyahan waa la ii soo tilmaamay waxa la biyo guduud meel la yiraahdo baa biyo kuugu dhow waxaan moodayay ceel durduro caadi oo biyo qab durdur caadi ah waa iminka waa ceelka la biyo xiray halka marka iska soo taagay waa yaabay ismaha markii hore waa la yaabay dabeedna waa iminka waa ceelka la biyo xiray waxaan dadka xalaalnimadan iyo wadanimadan ka shaqeeyay dalka dadka noocaas joogan isma lahayn aqli ahaan waana ku liibaanay ilaahay idankiisa dadkii dhisayna waa dad wadanimo iyo xalaalnimo iyo cadaalad ka shaqeeyay bulshada ka faa'iidaystay wajigii koowaad ee mashruuca la tacaalidda iyo la qabsiga isbeddelka cimilada ayaa sheegay inay jiraan dhibaatooyin badan oo aan weli wax laga qaban waxayna codsanayaan waxyaabaha ay doonayaan in wax laga qabto waxaanu rabnaa waxa naga dhiman haddaanu aragnay hay'addu inay run iyo dhab wax u qabanayaan ay anfacday khalqiga intaa tira la eg barkad kalena inaad noo dadaan taa in hay'addu noo qabato waa codsanaynaa biyo xireenadii meesha laga sameeyey biyihii waa hakadeen dhulkiina waa qoya awalna waa qalalaa haatanna dhulkii waa fiican naq wax ka soo baxay waa ka dhergeen haatan arrintaa lasii ballaarsho yaan u baahan waxa laga sii qabta dhulku waa ballaaran waa tiro badan markii loo eego duruufta baahiyeed oo ama xaaluf ama biyahan ay geysteen oo meeshan ka jirta waxay u baahan tahay wax intaa ka sii badan laakiin aad baa wax looga garanaya hadda in wax isbedeleen oo biyaha awoodoodii la yareeyey dhulka iyagoo baahsan ay soo mareen dhirtii ay soo abuurantay wax soo dhasheen dhulka wax ka soo dhasheen meeshaan waa soo guurnay dadka guudhada ma ahayn oo nimid waxa weeye haddaanu nimidna biyahan aan u nimid togaan la xiray waana ku faa'iidnay haddee waxaan codsanaynaa in togagana sidoo kale loo xiro kuwa kalena wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa hay-adda UNDP iyo JEF waxay 15 barkadood ka samaysay Burtinle Xamxamaa xasbahalle baran iyo dhahar sidoo kale waxaa degmooyinka Dangoroyo Burtinle iyo Qardho laga sameeyay 7 boholood halka Bandarbayle iyo Dangoroyo laga yagleelay biyo xireenno si mara dhalka barnaamijkan loo sii xoojiyay ayay wasaaraddu tababar u qabatay dadka degan degmooyinka iyo tuulooyinka kana xushay guddi isugu jira heer degmo iyo heer tuulo si ay deegaanka u ilaaliyaan wax badan baa nooga qabsoomay howlaha arrimaha deegaanka waxaanu samaynay wax la yaa wacyigelin waxyaabahaanu ku wacyigelin waxa ka mid ah duurjoogta inaan la layn meelaha dooxooyinka inaan maaragtay baabuurta iyo la marin inaan la degin dooxooyinka
waxaa ka mid ah inaan dhirta la jarin waxyaabahaasaa ka mid ah wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta puntland ayaa qiimayn ku samaysay guulihii laga gaaray wejigii koowaad ee mashruuca la tacaalidda isbeddelka cimilada deegaannada laga fuliyey inay jiraan weli gobollo ka mida puntland oo aanu mashruucani gaarin ayna ka jiraan dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada baahida mashruucani waa joogto maalin maalinta ka dambaysana wuu ka sii badanayaa isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay keenayso iyo abaaraha waxaan aad iyo aad uga rajaynaynaa mashruuc in la ballaariyo oo weliba muhiimadda koowaad la saaro sidii looga faa'iidaysan lahaa biyaha roobka oo ay wasaaraddu u leedahay shaqooyinkeeda asaasiga ee loo igmaday ka mid ah laba biyo xireen ayaannu hadda samaynay sidaan hore usoo sheegayba waxaannu hadda wadnaa 3 kale si markaasi xilliga soo socda oo dayrtaa ay dadkeennu uga faa'iidaystaan 3 biyo xireen oo cusub marka 3da cusub iyo 2da hore loo sameeyey waxay noqon doonaan 5 laakiin puntland dhibaatada ka jirta waynu ognahay meel walba in ay marayaan muxuu togag ay biyaha qaadaya oo dhirtii iyo ciiddii iyo wixii dhan badda ku daraya aad iyo aad bay uga ballaaran tahay muxuu ahaa 5 biyo xireen waxaan rabnaa marka kana codsanaynaa hay'adda UNDP arrinta ayada inay garowshiyo ka bixiso la ziyaadiyo kaalmada dhaqaale loogu talagalay puntland isla mar ahaantaasna waxaan aaminsanahay annaga laftigayow inaannu tusaale wanaagsan u noqonnay in soomaalida wax qabsan karto mashaariicdan hadda socota dhammaanteed biyo xireenada ay ku jiraan annaga ayaa qabanay shaqada oo gacanteeda ku qabanay wasaaradda ayaa hirgelisay